nabad ilaashaha dadkeena yaqaanimo Amin Media Amin Media Amin Media Amin Media wa insan haq dhowraha ku dhaqmana islaanimo Amin Media wa nabad ilaashaha dadkeena yaqaanimo Amin Media Amin Media Amin Media Amin Media Waxa qoys weexo wala kale u olole Waxa xola urso isticmaalka garabsi Amin Media Amin Media Amin Media Amin Media Waxa qoys weexo wala kale u حسن وما سنتاي هذا نمت إسوشيجنو حالة هذا السيدة أي تهي ويكسي ضرال هاد هذان علماء الدين والعجل الله الصعدة هي حالة السومالية أما والعجل السومالية أما صاحب السومالية الله الصعدة حتى يمتجري لهي وحال لو يسمي وعيقلين فربضا أو قار مدحتوية لقصو أبابولي قار وزارة أو قافة يعرمها دين تي عدالة لقصو أبابولي قار إذا عدى لفت الكذا راديو مقدشو إيه تي في لقى أبابولي oo isgarab socda oo muxuu barnaamijyo kala duwan oo wacyigelin ah qaar lagu wacyigeliyo shabaabka qaar dhalinyarada ay maaragtay ama dadka ay isbahaysiga leeyihiin lagu wacyigeliyo qaal bulshada looga digayo qaal bulshada laftirkeeda lagu wacyigeliyo intaas ayaa jirta iyadoo saas ay tahay dhibaatadu intii markii hore xajmigeeda la ekay maanta lama ka hoos u dhacba ku yimid waaya hadda hoos u dhaxas aad sheegayso waaba iska oran karaynaa mar haddii mataqaanaa xaggii magaaladan ay dhinac u sii badanayso xoogeedii laakiin haddana waxaan la soconnaa in masalan diintii fidinteedii xataa dhibaato badan ka taagan tahay oo qaarba dadkii diinta ay si u fasirayaan marka ugu horreysa balada tusaale yar ka bixiso diinta dadka sidee bay tahay in loo baro sidee bay tahay in loogu tartansiiyo sidee bay tahay in dadkay ku wanaagsanaada loo abaalmariyo bal haddaad in yar nooga hadasho حسن والله سأتاه سيدا هذا جرت حالة جرت وحوي وضنك السومالية الدولة كل جيك عنتا كل كتير جرت حكومة مركزية تسيطر على البلاد ما الله أركني مركا هذا أيها وحال وجرى مركا سيدي مجتمع السومالي اسمه فهم لهاي كافر وقوي بري ننع والبا ضدك لبعضك وضنا فرط اللوجو وضفيق لهاي أو لو ردك عالمي لهاي hadda xaaladaas hadday socotaa waa arrin aad iyo aad u fiican dawladuna ay wado caalamkuna oo la wado oo inta badan mujtamaca Soomaaliya in la mideeyo afkaartooda iyo waxtarkooda iyo waxqabadkooda in la mideeyo waa arrin hadda jirta fasiraada qaloocan kama wada imaan dad badan waxay ka timid dhinaca qolata la yiraaho khawaarijta ama shabaabka ama asalkooda ka yimideen qaacido ku soo tababarteen dabadeedna dad inta ay u soo direen wadanka ay keeneen afkaartoodii la qaatay fikradaha ay qabaan waxaa ka mid ah inta ayaga raacsan mooyaane inta kaleba inay murtadiin ay gaalaan oo diinta ka baxda ay yihiin maxaa yeelay qaar ayaga ka mid ah oo waliba dadka u wacyigeliye ah ayaa waxay ku dhawaaqeen kam imisa masaajidka ku dukanaysa oo gaala kam imisa muxuu ahay ashahaadanaysa oo gaala ah ayagoo dhahaya ayaa la arkay marka arrintaas waa jirtaa waxaa jirta mararka qaarkood in ay ayagu quraanka waa ictiraafsan yihiin lafdigiisa ictiraafsan yihiin laakiin fasiraadiisa inta badan ma ictiraafsana si kale u fasirayaan oo sida culimadii hore u fasirta aan ahayn sida si ku munaasabana aan ahayn oo dadka dhiigga iyo dhiigiisa xoolaha dadka lagu banaysanayo ayay u fasiraan maxaa yeelay haddaysan murtad waa dadka dhihin oy aabaha gaal waaya dhihin oy qof walba qoftii la joogta aysan qofta dad u xigta aysan farta ugu fiiqin si gaalnimo ay u aqoonsato dad badan oo garbeeya heli maayaan marka taas ay garab ka raadinayaan dad wax ma garad iyo dhalinyaro yar ay duufsadaan ayay sameeyaan waxaan ka warqabnaa hadda marno in ay tartan qur'aan bishii ramadaanka iyo ay qabteen ay arda ku abaal mariyeen masaaxif qur'aan iyo muxuu ahay banaadiq hub ay ku abaal mariyeen marka hubka waxay uga dan leeyihiin qur'aanku waxay leeyihiin diintii buu matala يعني دينتي واي او ان هيسنay asalkeedii waaye
kanaan kugula dagaalamayna waa macnaha ay ka dhigayaan isaguna uu aamusan yahay ma hadlaayo qur'aanku ma hadlaayo ilaa qof inay ku dhawaaqda mooyaane marka qorigii oo wuxuu ku hadli lahay waxaa laga dhigay marka qoray in looga hadal siiyo oo hadalkiisi la yidhaaha qorogan ayaa hadalkiisi ah siyaasadda ay wataan waa taas waa qodob waxaa ku kalifaya marka siyaasi ahaan ideolojiye ahaan caskari ahaan boqolkiiba 70 waa jabeen mar hadday jabeen waxay bilaabayaan si dadka marka ducafada ay dadka wax magaradka iyo dhalinyarada jiilka soo koraya hadda ay uga faa'iideystaan si ay dagaalo cusub ay ugu abuuraan oo cadaawanimo cusub ay ugu abuuraan ayagoo marka qur'aanka mujarradkiisa kali ah gacanta u gelihay iyo qoray oo ay leeyihiin kitaabka ku difaac kitaabkaas qur'aanka ku difaac qoragaan ay fikrad uga dhigayaan marka arrinta jirta oo ay ka dhigteen hubka ay ka dhigteen oo hadafka ay ka dhigteen waa taas diinta islaamka meel ay ka waafaqsan tahay haba yaraateena ma jirto maxaa ku jaban haddii la yidhaahdo masalan diinta ha lagu difaaco xoog haddii la yidhaahdo maxaa ku jaban ma dhibaa ka jira diinta marka horeysa waxay ku timiday wacyigelin sax rasuulka calayhi salaatu wasalaam 13 sano ayuu nabi maxamed joogay magaalada maka la yidhaaho dadku u yeerayay galab iyo subax leylan wa nahaaran wixii yimaadana waxaynayay qur'aankuu ku akrinayay qur'aankuu ku wacyigelihayay asnaamta u caayayay aalihada u caayayay cibaadada oo ilaahay antiisa aan ahayn ayuu farta ku fiiqaayay oo dalaalka keentay iyo in la lumo maxay dadku sida badan asnaam bay caabudi jireen qolo walba ilaah bay qabtay qabiil walba ilaah buu lahay degaan walba ilaah buu lahay qof walba socotana ilaah bay lahayd oo timirteeda iyo saloolkeeda iyo inta ilaah ka dhigato ay haday baahatana cunaysay haddii kalena ay caabudaysay marka waxaasuu la dagaalamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 93 suuradood ayaa la sheegaa inay magaalada maka kula soo degtay oo intaasoo dhan tawxiidka inta badan ka sheekaynaysa iyo dhacdooyinkii hore oo nabiyaalkii hore wixii ku dhacay iyo dadkii caasiye ilaahay aayado qur'aan iyo suurado qur'aan oo ka sheekaynaya marka dadka marka waxaa ka horeysa wacyigelin maxay la rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu jeysh uu diraayo wuxuu dhihi jiray carruurta lama dili karo haweenka lama dili karo baadiriga lama dili karo ninka duqoo gabooba lama dili karo waxaasoo dhan dil mamnuucay ka tahay ilaa muddo 3 maalmoodana dadka waxaad u qabanaysiin wacyigelin markaad meel aad martaan weysaan markaas ka bacdi ayuu dagaalka idiin furan yahay waxaad u sheegaysiin wixii xuquuqa ood leedihiin inay leeyihiin wixii waajibaad oo idin dul saaran inay dul saaran yihiin wixii iyaga idinka ku waajibay in iyagana ku waajibaya saas u dhacsiiya markaas saa u fahamsiisaa ninkii diida markaas waxaad tiraahdeen walba jisi ogolaaw lacag laga qaado oo sanadkii ah oo intaasoo dirham ama intaasoo diinaar iska ogolaaw gaalkaagana iska ahaw laakiin shuruudaha ku xiraato inaad islaamka nabadgelinayso inaadan islaamka dicaayadaynayn inaadan islaamka dilayn inaadan islaamka farta ku fiiqayn inaadan islaamka dacninayn adoo meel degan haddii islaamka kugu yimaado inaad marti qaadayso ood soo dhawayhayso waxyaabahaas ayaa laga saxiixaya laakiin lama dilayn isagoo gaala marka gaalaa tahay loo dili mahaynin marka mana qabta diinta islaamka in la yidhaaho midab cadaad leedahay ama midab madoobaad leedahay gaal baad ma tahay marka ugu horeysana seef baa naga dhexaysa in la yidhaaho arrin meesha ku jirta ma aha marka saas quwad hadday tahay oo quwad la isticmaalayo quwad waa inay fikro iyo dacwo ka horeysaa waxaan leenahay hadda ardayda waxaa lagu tartansiiyey quraan waa sax nimankan waxay ku abaalmariyeen marka hub waa sax ay ilmihii yaryar ku abaalmariyeen waa sax sida saxda ah ee la rabay in loo sameeyo marka waa sidee oo sidaas ka bedelan marka ilmaha la tartansiiyey sidaas waxaa ka bedelan in marka ugu horeysa ilmaha waalidkoodii la waco macallimiintoodii la waco loo yeero waalidkoodii oo diinta baray maxuu la yidhaaho maxuu waad ku mahadsantihiin macallimiinteedii la yidhaho waad ku mahadsantihiin macallinkiisi abaalgud la siiyo dhaqaale hadday tahay hadday xoolo tahay hadday waxigi tahay hadday shahaada sharaf tahay hadday madaaliye tahay in la siiyo macallinkiisi in la siiyo maxuu ahay waalidkiisi la soo dhoweeyo la marxabaysiiyo
si diinta ay u soo kacdo oo haddii kan wax la baray kaasna kan kalena wax la baro kan ka yar iyo midka ka weyn wax loo baro si diinta ay u faafto oo halkaa ruux kaliya uusan abaalgud yeelan asaga kana la abaal mariyo hadday lacag tahay hadday iskool tahay hadday dugsi tahay hadday xaj tahay hadday cumro tahay meelo badan uu jecel yahaa jirta meelaha badan uu jecel yahay in loo tixgeliyo hadday qoran noqoto in dadka la dilana lagu diido oo la yidhaah noogumaba jirto abaalka leanna abaalgudyo adduunka laga bixiyaa jirta meel adduun amba muslim amba gaalab cid looga dayanayo ma jirto ka lagu abaalmariyay bambooyinka ka waran waxaa lihi ka koowaad waxaa la siiyey qori iyo 700 kii labaad waxaa la siiyaa lihi hal qori iyo $500 kii saddexaad waxaa la siiyay 2 bambo bal ka waran marka 2 bambo ya waxa weeye taas abaalgudba ahi waa halaag isagaa la xilligu haya liannahu waxaa suurtooda inuusan bambadiba aqoon isaga laftirkiisa waxaa suurtooda hadduu tuuro inay isaga ku soo noqoto haddii la yidhaha dagaal gal marka uu bamba tuuro in isagii la dilo markaas laba abaal marinkaas waa la dilay mid la dilay waaye halaag baa lagu riday marka waxa oo waxaynayo dadku waxay moodaan ayagu in dadkan wanaag lagu abaal marihayo in dadka laftirkooda la deb saarayo ee la mishimayo ayay u eg tahay maxaa yeelay maxaa qoryo loogu dhiibaya caniga roo hadda soo korayo oon qoraba aqoon oon xabad ridi aqaanin oo inuu xabaddu ay ku soo noqoto ay suurtowdo oo hubkiisa uu ku qarxa ay suurtowdo oo ay suurtowdo inuu isaga laftirkiisa isku dilo ay suurtowdo dad kale inuu ammaankiisoo furan qoriga ammaankiisoo furan inuu intiis ka dhaqaaqo isaga uu dhaawaco qof kale loogu talagelin ma uu dhaawaco marka taas waa khalad diinta islaamkana ma qabto maxaa yeelay diinta islaamka waa ka soo horjeedaa in dadka muslimka la halaajiyo in dadka lucafada la dilo in dadka maxuu ahay marka ugu horeysaba waa in caqiido la baro iyo nidaam ugu dambeyntii sideed u malaynaya marka in looga gudbi karo xaaladda markaas lagu jiro aad arkayso dadka misalan waxbaa la barayaa waa la leeyahay ilmihii hubna waa loo dhiibayaa waa sax sida looga gudbi karo marka taas oo aanay dadka ugu kadsoomin ya maxaa la samayn lahaa bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay arrintaas in lay weydiiyo waa jeclahay arrintaas waxay u baahan tahay qaabo fara badan in loo isticmaalo marka ugu horeysa horta waxaan doonaynaa in muxuu ahay dawladdu cafis bay u fudisay oy tiri waxay qaabkaa ku dagaalamay ha iska dhaafaan ha noo yimaadin ha nala heshiiyaano in wacyigelin waa la wadaa wacyigelintu ay dhegaystaan in ayaga culimmadooda oo waxaan samaynaysa kolley dad baa wata oo diintaan u dadaalaynaa dhahay in ay nala doodaan oy culimmada Soomaali la doodaan ee hadday iyaga xaq wataana ayagaa la raaci doonaa hadday xaq darro wataana xaqa kale ay soo raacaan waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in la yidhaaho ruuxii yimaada abaalgudkaas ayaa loo sameeyaa oo kasoo taga oo abaalgudkuna mid Soomaaliya bixinaysa uusan ahayn ee mid caalamka laga bixinayo oo ahaado si dadkan loo yareeyo dhibaatada wada oo caalamka nala garto oo caalamka gacan nagu siiyo oo miisaaniyad noola qariro laftirkayna annaga leanna ruuxa Soomaalida waxaa suurta haddii miisaaniyad inta loo dhiiba la yidhaah dadkaa ku maamul inuu isaga hunguriyeeya suurtowda marka caalamka ha nagala shaqeeyo in miisaaniyad la helo oo la bixiyo oo dadkan Soomaalidana aan gacan looga dhigin ee guddi Soomaali ka kooban culimada Soomaali ku jirto dawladda ku jirto caalamka ku jirto miisaaniyad loo sameeyo sida ruuxii loo baal haatiyaba oo saddex oo ugu soo oro oo si degdega oo u yimaado oo uga faa'iideysto wixii jira wixina fursadda uga faa'iideysto wixina ay noqdaan wax aan laga been sheegay ay noqdaan talabaad dadka madaxda ah oo waxbaa naqaanaa dhahay in muxuu ahay idaacadaha waa lagala hadlaa tviyada waa lagala hadlaa in hadday si saxa wax u qabaan nin alla ninka ku safaho caalamka jooga ama wax yaqaan ay u yeertaan ee markaas ayna garamiyaan ama ayna dhegaystaan aan ka doodna marka arrintan sida looga gudbi karo waa qodobadaas faraha badan oo caalamka dawladaha qaarkoodna ay uga sabata baxeen sidii Sacuudiga oo kale Sacuudiga markuu ugu horeyso ciidankii difaac lahayd uu dhistay markii labaad culimadoodii iyo culimadii kale la isqaabiliyay waa la dooday waa looga raayay waa looga guuleystay markii saddexaad waxaa dhaqaale loo sameeyay iyo meelo ay ka shaqaystaan dadkan lagu harawsanayo qoraga anaad wax ku kasbanaysaa oo tir isaq ku saarsanaysaa marka intaasoo iskaashatay ayaa looga sabata bixi karaa aad iyo aad shukran Amin media, Amin media, Amin media, Amin media.
waana islaanimo Amni Media wanabadilaha shaqa dadkeena yaqaani booliiska horta wuxuu ka mid yahay sugidda amniga iyo nabadgelyada magaalada markii laga reebo shaqooyinka oo sharci ahaan oo booliiska laga rabo laakiin waqtigan xaadirka ah ama marxaladda hadda aan ku jirno waxa way shaqada booliiska waxa way waa sugidda amniga magaalada xamar ah ma dhihi karo waa amniga hadda waa boqolkiiba boqol waa okay laakiin boqolkiiba 80 waa okay waa ka soo shaqeynay waa ku dadaalnay wili fara kama wili waa ku dhex jirnaa in magaalada oo dhan amnigeeda aan ka dhigno boqolkiiba boqol waa gartay masalan hadda markaan leenahay boqolkiiba 80 ma boqolkiiba 80 baaxadda magaalada muqdisho mase waa howlgalkiina boqolkiiba 80 ah magaalada xamar waa la socotaan saldhigyada oo dhan ama magaalada oo dhan gacanta ayaan ku haynaa runta markii laga reebo laba saldhig ah 14 saldhig ah iyo bakaaraha booliiska ayaa jooga intaas oo dhan idinka ayaa naga marqaati ah maantaan meelahaas oo dhan oo booliisku jooga nabadgelyada siduu yahay idinka ayaa naga marqaati ah shalay siduu ahaa iyo maanta siduu yahay intaasna waxaa lagu gaaray dadaalka ciidanka booliiska iyo hay'adaha kale ee amniga ah oo si wada jir oo nala shaqeeya ayaa waxaan ku gaarnay intaas waaya hawl kastoo la qabanayo waxaan u haysanaa amniga waaba ugu sii daran yahayba kullayna hawl kastoo la qabanayo xoogaa caqabada ahaa jira intay doonaan baa la ekaadaane maxaad ku fasiri lahayd misalan caqabadaha hortaagan booliiska waxyaabaha dhibaatada ku haya si ay hawshii boqolkiiba 20 ka dhiman u dhamaystiraan caqabada maantan oo annaka na hortaagan waxaa hubka fara badan ee magaalada lagu hayo maleesiyo fara badan oo wili aan magaalada laga safeeyay degmooyinka qaarkooda waxaa jooga ciidan oo madani ah la yiraahdo intaas ka soko dadweynaha laftigooda oo iska haystaan hub sharci dara ah caqabada waxaa waaye xakameynta xubkaas ayaan ku dhex jirnaa maalmahan si magaalada oo dhan aan ka safeyno dadka maanta waxaa waaye runta ah oo hoosheena oo booliiska oo habeen iyo maalin ah maaragtay ciidan aan ku dardaarno waxay tahay inkastoo al-shabaab oo dhan laga saaray ama laga maaragtay laga xoog roonaaday laakiin al-shabaab weli jiridkooda ayaa magaalada ku aasan waxaan rabnaa jiridkooda inaan ka siibno waayo waan la soconaa dhaqdhaqaaqooda ayaan la soconaa hubka hadda maalin kasta aan qabanaa waxayna u badan yihiin qaar ay ka soo goosteen al-shabaab ah oo qaar iska dhiibeen oo iska jira qaar oo aan qabanona waa jira marka caqabada maanta booliiska inkastoo booliiska waxyaalaha badan oo ka maqan amkaaniyaad badan ayaa ka maqan laakiin hawsheena si caadi ay u socoto waa kala qaadaynaa masalan waxyaabaha booliiska ka maqan si awoodiisii ay u dhamaystiranto iyo ta hadda aan ka hadalnay masalan maleeshiyaadka hubaysan ee qaarkood aad ku tilmaantay ciidan madani aad ku tilmaantay ciidankan madaniga masalan ma yahay ugu yaraan ciidan diiwaan gashan oo la og yahay meesha uu joogo iyo tirada uu la og yahay iyo waxa hub uu haysto ilaa had tiro ahaan runta markaan kuu sheego tiradooda lama yaqaano hubka ay haystana lama yaqaano laakiin anaka waxaan sameynay baaritaan magaalada xamar oo dhan degmooyinka oo dhan ayaan soo marnay waxaan ogaanay hubka yaala dadka gacanta ku haaya iyo maleesooyinka qaarkooda ay meelaha degmada oo maaragtay ay joogaan ama isbaarooyinka kulli waa haysana waa sameynay waxaana ku dhaqaaqeynaa sidii maaragtay meelahaas oo dhan oo aan ka safay lahayn hubkaas sharci dara oo meesha lagu haysto waya ciidamadaasi marka maqaar hoggaan lahaa oo si dhab ah u abaabulan mise waa ciidan iska hubaysan oo hadba siday doonaan iska yeeli lahaa inkastoo haddaan arkayna annaga magaalada inaysan xabad aadan maqlayn intaa magaalada dhex socoto intaasoo aad arkayso meel walbo aad marto booliis socda aad arkayso laakiin haddana waxaan arkaynaa marmar qaar hubaysan oo aan haddana lebis qabin marka ugu yaraan ciidankaasi madani aan ku tilmaanay ma abaabulan yihiin oo meel loogu hagaagaya barmay leeyihiin mise waa kuwa iska
si teelteela meel walba u joogan cidi xukumin ciidan madaniga ah waxay la shaqeeyaan oo degmooyinka ayaa la shaqeeyaan ciidanka booliiskana way la shaqeeyaan laakiin ciidanka madaniga waxaa ku gaban karaa ku dhuumo karaa ciidan kale oo aan ahayn madaniga waa sida hadda aad tiri ciidan oo maaragtay qori iska haysto aan la bisnaynina laga yaabo waxa weeye ciidanka aan meel aan ka tirsanayn aan ahayn ciidanka booliiska ama aan ahayn ciidanka kale ama aan ahayn ciidanka madaniga anaga marka waxa weeye inkastoo oo si rasmi aan la ogeyn laftigooda ciidanka madaniga tiradooda dhab ah laakiin waxay la shaqeeyaan qaar waxay la shaqeeyaan guddoomiyaasha degmooyinka ay la shaqeeyaan marka waxaan u soo noqonaynaa arrinka kaleeta ku saabsanaa imkaaniyaadka ciidanka uu u baahan yahay si uu u dhammaystirmo oo awooddiisii u dhammaystiranto imkaaniyaadka kolley qaarna waad haysataan oo waaba ku howlgashaan waxna waa idinka maqan bal haddaad tilmaanta masalan waxyaabaha idinkugu daran hadda ee aada howlihiina isleedihiin dhibaatay ku tahay waxaasi la-aantood maxaa ugu dardaran hadda booliiska horta annaga waxaan booliiskii hore waxay ku shaqayn jireen garuumo wax la yidhaahda annaka booliiska ma isticmaali jirin hub iyo wixii lamid ah laakiin hadda waktigan ma joogno waktigii guruun la qaadin lahaa waayo cadowgeena ayaa iska badan waxaa waay dad oo lidi ku ahaa dowladda siyaasadda dowladda oo cadow ku yahay shacbiga cadow ku yahay oo hub haystaan marka nin garuun haysta iyo nin hub haysta isku mid ma noqon karo marka caqabada koowaad waxay tahay booliiska annaka hub ma haysano waaye waxaa jira dad technica haystaan isbaarooyin oo maaragtay ama jidgooye ay sameeyaan oo technica haysta booliiska oo qori haysta dadkaas oo technica haysta annaka ma la diriri karno runta caqabadaas ayuu ka mid yahay caqabada kale waxaa ka mid ah booliiska waxaa waaye waa inuu helaa gaadiid oo ku dhaqdhaqaaqo hadda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waad arki kartaa toban baabuur ayaa cusub ah ayaa booliiska loo keenay waxaanan ka helnay ama dowladda usoo gudbisay dowladda suudaani ah baabuurkaas ayaan rabnaa saldhig kasta hal baabuur inaan geeno baabuur haddaan geenana waa loo baahan yahay hub inaan geeno inaan ciidanka meesha la geenaya inaan hub la siino waa caqabada koowaad waa taas sax caqabadaha kale misal dhinaca isgaarsiintana ka waran booliska annaga waxaan ogaa jirnay meeshii wax ka dhacaan inaad u qabto inay og yihiinba durbad degdeg ku yimaadaan ayagoo weliba xoog qaba isgaarsiinta xaggeedana ka waran isgaarsiinta ka sokow booliiska isgaarsiinta keliya kuma shaqeeya waa information ku shaqeeya sax meelka horta anaka malaa'ika ma nihin dad ayaa la shaqeeyaa booliiska meel kastana waxaa hataa hadduusan booliiska joogin nin shacbi ayaa jooga wax alla wixii meesha ka dhaca booliiska ayaa la gaadsanaa markaas ayaan ku dhaqaaqnaa ama lug aan ku tagno ama baabuur aan ku tagno sidaas ayaan ku dhaqaaqnaa horta waxaaba isgaarsiinteenana waa la idin gey karaa oto haddaad rabteen waxaan ku rakibnay sidii oto hore telefoonada ayaan siinay dadweynihina waa u sheegnay lambar ayaan siinay haddii magaalada wax ku aragta ama wax dhacaan lambarkaas oto in la waco oo markaas annaga aan ku dhaqaaqno centra ayaa waxaan sameynay meel xarun ah hadi 24 saacna waa la joogaa intee la egyahay xiriirka u dhaxeeya shacabka iyo ciidanka booliska ee ammaanka sugaya xiriirkeena intee buu la egyahay rajadaas intee la eg tahay inay soo dhammaystiranto 20% ka maqnayd horena ugu sheegtay awoodda ciidanka booliska runta anaga centre waxaa way xiriirkeena anaga iyo dadweynihi waa inuu ahaadaa xiriir ah wanaagsan waayo annaka maxaan nahay booliiska sidiis muxuu yahay qoysaar ayaan nahay annaka qoysaar dadweynihi ayaan u shaqeynaa khaadimiin ayaan nahay waxaa hantidooda inaan ilaalino naftooda inaan ilaalino wax kasta oo dadweyne leh inaan ilaalino ayakana inay nala shaqeeyaan annaga inay gacan nagu siiyaan sidii waajibaadka naga saaran sharciga aan sidii xabsan u fuli lahayn waa in ayaka laftigooda wada shaqeeyaan ama inay nala shaqeeyaan si fiican inay la shaqeeyaan runta waxaa weeye 20 ka dhimo waxaa weeye safeynta magaalada laakiin xiriirkeena annaga iyo dadweynaha waxaa weeye waa okay waaye waxaana ku dadaalaynaa kalsooni buuxa ah
inaan ku soo celino dadweynaha sidii awal ah kalsoon dadweynaha waa aaminsan yihiin booliiska runta waa aaminsan yihiin inkastoo xogayr aan dhutin laakiin hadda waxaan gaarnay xeer almeeno booliiskii rasmiga lagu ogaa howsha inaan fulno sida xiriirkiina adinka iyo Amazon مثلا ee xagga tababarada booliska intuu la egyahay imisa ciidan ay idin tababaraan maxaa isla qabataan idinkii Amazon anaka tababarada Amazon waa ka helnaa AU-na waa ka helnaa African Union waa ka helnaa tababarada waa socdaa tababarada waa socdaa hadda lafteeda hadda waqtiga aan ku jirno ciidan oo anaga naga tirsan 4 ilaa 20 ah oo saraakiil ah waxa tababar ay u socdaan maaragtay Nairobi tababarada waa socda si joogto ah ciidanka intuu la egyahay مثلا ay Amazon idin tababareen ama hadda xataa xiriirkiina xagga booliisinka ama shaqada booliiska uu hayo sida isla qabataan min maalintii la bilaabay in dib loo dhiso booliiska laga bilaabo ilaa dawladii Abdullahi Yusuf oo Baydo ciidan fara badan ayaa la tababaray ciidanka waa laba nooc waa ciidan oo maaragtay training la siiyo ciidan saraakiisha oo training la siiyo waana badan yahay ciidan oo ilaa hadda tira exactly hadda ku sheegi karo laakiin booliiska waa tababar fiican ay Amazon iyo hay'adaha kale ay ka heleen waa badan yihiin okay waajibaadka inta sadaan ku sino xuquuqaha booliska ka war mushaaraadkooda ma helaan qofkii wax gaaraan مثلا caafimaad ma helaa qofkii مثلا dhibaato kale ta qaba booliska wax ma la qabtaa ama Amazon wax ma la qabataa dhinacaas bal ka waran waajibaadka xuquuqaha horta waxa sidiisaba booliisku wuxuu leeyahay ama ninka askari ah waxa leeyahay waajib inuu guto waajibku markuu guto inuu helo xuquuqdiisa صح afqalaad hadaan ku yiraahdo diritto e dovere la Italiano aywa waxa waajib iyo xuquuq booliisku waa shaqeeyaa habeen iyo maalin waa taagan yihiin haddii laakiin xuquuq ahaan aad i weydiisid waxa uu ka mid yahay xuquuq waa mushaar ama gunno hadda mushaar ma jiro waa gunno ayaa jira oo loo qoondeeyay booliiska in la siiyo waxa askarigiiba bishii $100 iyo saraakiil xoogeen maalintii sanadka 2010 bishii Janaayo ilaa May shantaas bilood June 2010 ilaa hadda booliiska shilin lama siin waana sugeynaa dhaqaalaheena waad ogtihiin booliisku waxay ka sugayeen wadeeq bixiyaasha ah marka intaasaa ka maqan xuquuq haddaad i weydiisid June 2010 ilaa bisha aan ku jirno shil lama siinin booliiska qofkii howlgalka la wado wax ku noqdana oo askariya ugu yaraan daweyn iyo isbitaal iyo daryaal caafimaad iyo wax ma helaan anaka isbitaal ayaan leenahay isbitaalka Madiina hoggaanka waa hoggaan oo dhan oo caafimaad aan leenahay hoggaanka caafimaadka ee booliiska la yiraahdo isbitaalka Madiina waa la socotay isbitaalka booliis ah dad booliis ayaa noo jooga dhaqaatiir oo booliis ayaa noo jooga inkastoo oo agaasimaha uu yahay nin doctor oo civil laakiin annaka gacanta ku hayna isbitaalka ciidankana maanta haddaad tagtaan waad arki doontaan ciidanka oo booliiska oo meesha jiifo dhaawac iyo marka isbitaal waa leenahay daryeelka caafimaadka 100% waa kaalmeena ciidanka wixii aan u heli karno hatta iska ayaan ku shaqeynaa ciidanka oo qaar oo daran oo operation lagu sameeyo oo isbitaalka maxalliga isbitaalka kale ayaan geynaa anaga ka bixina ciidanka ayaa wax laga aruuriyaa ama sidaas ayaan u dayeernaa ciidanka haddaan ciidanka la dayeerin maxaad ka sugaysaa ma qaban karo wax ma fulin kara marka waxaa ciidanka waxaa in la daryeelaa ciidan raashin ayaan siinaa bishii 2 jeer ayaa loo qaybiyaa raashin inkastoo waagii hore xaqabtiro ayaa jiray isbaashooyin ayaa jiray waana gaaraynaa insha Allah intaasna waa gaaraynaa laakiin intaas haddaad i weydiiso xuquuqda waa mushaharka hadda maanta naga maqan oo ciidanka oo intaas bilood oo ka maqan laakiin waa sugeynaa insha Allah ballan waxay qaadeen hadda shirki ugu dambeeyay hadda aan ka soo noqday Nairobi marka aan la kulnay deeq bixiyaasha waxay ballan qaadeen bisha October
intaas mashaar oo booliiska ka maqan waa bixinayna yidhaah hadda ka bacdeen la bilaabo November iyo wixii ka dambeeyana bil kasta booliiska mashaarka oo $100 la siiyo waana rajaynayna insha Allah aad aad u mahadsan waa mudan Amin media wana badila shaqo dadkeena yaqaanimo Amin media Amin media Amin media Amin media wa insan hawlaha dhaqmana islaamnimo Amin media wana badila shaqo dadkeena yaqaanimo Amin media Amin media Amin media Amin media Waxa qoysu weexo wala kale u olole Waxa xoolo urso بسم الله الرحمن الرحيم nabadu waxay ku suurta gashay wax weyn looga qabtay wadajirka ciidamada qalabka sida gobolka Banaadir iyo dadweynaha oo iskaashaday ayaa nabadda lagu xasiliyay deegaankan qaybta bartamaha waayahay bal hadii aan wax yar aan sii faahfaahino dhibaatooyinka ugu badan hadda midalan ee xagga sugidda ammaanka aad kala kulantaan hadii aad bal noo sheegto dhibaatooyin waa iska jiraan hadda se wax weyn ma jiraan in kasta oo la soo dhaafay wixii culeyskii badnaa ee xagga dhibaatada ku saabsanaa dhibaato hadda oo sidaas xagga xoogaa xagga hubka sida loo wato aan ku haboonin in loo wato magaalada dhexdeeda bacdama ay halkaan tahay meeshii magaalada ugu horeysay xagga xasiloonida nabadda dad badan ay ku soo qaxeen dad badan oo ciidamo iyo wata ayaa ku soo qaxay ayaga ruuxooda oo marka ciidamadii noocaas ahay ayaa lagala kulmaa mararka qaarkood xanibiyo xagga amniga ku saabsan marka seebay kula tahay markan ay haboonta in wax looga qabto midalan hadda ciidamadaasi ma tira kooban yihiin intay la eg yihiin meelaha ay joogaan ma la garanayaa si wanaagsan bay u tira kooban yihiin si wanaagsan waa loo garanayaa meesha joogaan iyo cidda mas'uulka ah raboorkaana waa gudbinay ilaa iyo taliska ilaa iyo meelihii looga baahnaa dhawaanna waxaan filaynaa in tallaabo ku saabsan arintaas in laga qaado dhawaan markaan dhahayna maxaan ku cabiraynaa ma saacadan ku cabiraynaa ma sitimaanaan ku cabiraynaa ma bilaan ku cabiraynaa ma sanadaan ku cabiraynaa maxaan ku cabiraynaa waxaan ku cabiraynaa hadba madaxda aan u gudbinay raboorka xilliga ay amarka soo bixiyaan haddii aan dhinaca kale ta eegno midalan idinku amniga qaabilsantiin magaaladana amnigeeda wax ka qabashadeeda waxa ugu soo horeeyay midalan ciidamada AMISOM ee midowga Afrika ee halkan loo keenay sugidda ammaanka goobaha muhiimka ah wada shaqaynta la eg baa idinka dhaxaysa idinka ciidankaasi wada shaqayntu waa wada shaqayn wanaagsan baa naga dhaxaysa howlaha ay ayagu badana anaga meelaha laga xoreeyay ama meelaha nabadgelyadu ay jirto magaalada gudaheeda badankooda kama shaqeeyaan ayagu waxay ka shaqeeyaan inta badan meelaha hore raaca hore dhulka loo yaqaano oo ay ka soo horjeedaan qolyahan al-shabaabka okay way hadda mar waxaad carabka ku dhufatay inay jiraan ciidamo hubaysan oo wax mararka qaarkood amni darra laga kulmo amni darradaas intay la egtahay ma shacabka ay xabadeen ma ayaga is xabadeeya waa maxay amni darrada ay sameeyaan amni darradu waa mid caadiga dib loo geysanayo badana dibku wuxuu ku dhacayaa dadka shacabka ama markii howl la qabanayo ciidanka booliiska howl qabanayo in ay ciidanka ayagu isku dhacaan markii laba ciidan isku dhacaanna waxa meesha ka imaanaya qasaaro la xiriira xagga shacabka inay wax gaaraan taas oo aan loo baahnayn hadii jeerna anagu aan xadidno meelaha qaarkood aan uga soo noqono si ay dadka shacabka waxba u gaarin waaya ugu dambeyntii garaad hadii aan ku weydiiyo bal saldhigan hadda afaridood awoodda uu hadda amniga ku suga ma waxaan dhihi karnaa waa awooddu u baahnaay ku filneed mise waa ku yar tahay mise maxaa ka maqan maxaad haysataa waa su'aal wanaagsan weeye oo ku saabsan mataqaanaa dhibaatada waxyaabaha ka hor imaanaya awoodda ciidanka booliiska ma dhama awoodii loo baahnay saldhigan ma haysto saldhigyada kalena ma haystaan laakiin waa lagu soconayaa waxaan rajaynaynaa dhawaan ayada waxyaabaha aan maalin dhaweed qoraalada ka sameynay kamid tahay proposal ah 150 in la keeno saldhig walba oo ciidan ah soo jeedin in 150 ciidan ah saldhig kasta la keeno waa sida marka waxa cududi dadka ee loo baahnaa human resource loo baahnaa ayay noqonaysaa haye maxaa kale
dadka ayuu gacmo raaracan wax ma ka qaban karaan dadka hubaysan aad sheegayso waa halkaan tigsanayno in ay gacmo raarac ay wax ku qabtaan waa meeshan u socono waa meesha u socono inta ka horeysay waxaan ku shaqaynaynaa hub baad ku shaqaynaysaa nacam imkaaniyaadka kale oo aad u baahan tihiin midalan waxaan arkayaa saldhig waxaa joogtaa qadiima waxaad moodaa in xoogay burbur iyo wax ka muuqdo waxa laga yaabaa qalabkii kale ee xafiisadii lagu shaqayn lahaa inaysan ku dhamayn adiga midalan qalb waxyaabihii kale ee midalan dadka markay isu soo dacweeyaan dibin baaristii fara laga qaadi lahaa wax ka waran qalabkaas ma haysataa qalabkaas inta badan maya lama hayo sababtuna waxay tahay iyadoo ayna jirin miisaaniyad u qoran guud ahaan ciidanka booliiska gaar ahaan gobolka Banaadir iyo si gaar ahaan saldhiga aan joogno iyo qaybta aan joogo intaba ma laha miisaaniyad u qoran had iyo jeer wixii baahidu noqdo waa qoranaa waa gudbinaa wixii la heli karo oo ah tiradii loo baahnay in ka yar ayaan ku imaanaysa culays ahaan marka ciidanka dacwooyinka uu soo qabto ama dadka isku dhaca wax uu ka qabto booliis ahaan shaqadii booliiska uu sameyn jiray culays ahaan maalintii meeqaad la kulantaan maalintii xawaali ilaa 20 kiis waa la helayaa oo soo gaarta saldhiga waxa wax laga qabto iyo wax mutaqaanaa lagu raad joogo intaba maalin bas maalin ay adkeeyeen maantana waa maalintii ugu qafiifsanayd waxa qoys weexo wala kale u olole waxa xoolo urso maalin bas bay ahayd maalin ay adkeydna waa jirtaa maantana waa maalintii ugu qafiifsanayd intii xilka anigu aan hay intee muddo intee laag waxa weeyaan 20 sano burburkaba degmadan aan ka howlgalayay maraan gudoomiye ku xigeen uga howlgalo maraan guddiga caadiga ku jiro iyo hadda oo aan gudoomiye ka ahay intaba waayahay gardhubow haddii aad bal noo sheegto misalan waxaad tiri inta ay hadartaan ay ugu fiican tahay maxay ugu fiican tahay maxaa qabsoomay waxaa jirta fursad macquul ah oo iyo garaaf koraya oo socda labaduba waxay ku gelinayaan rajo muuqata oo mustaqbalka hay adiga misalan guud ahaan shaqooyinka aad qabato maxaa ugu badan maalin kasta shaqada aad qabato misalan shaqooyinka aan qabtaa waxa weeye soo gudbinta mujtamaca dacwada isu qaba inaan keeno saldhiga oo u soo gudbiyo inaan muxuu ahay anigu heshiisiyo inaan xogogaal u noqdo waxa deegaanka ka jira inaan abuuro fursado muxuu ahay wada hadal oo bulsho wax inaan muxuu ahaa isu keeno dareenka dawladda iyo kan dadweynaha markaasi ma waxaad qabataa shirar aad mas'uuliyiinta shacabka ama duqeyda magaalada qaybtan adigu aad joogto degmada miyaad shirar u qabataa see u suubisaa hawshaasi saldhig waxa uu ah shirarka sababtuna waxa weeye haddaan la wada hadlin wax lama fahmi karo arag shirar guud oo deegaankoo dhan ku dhan yahay iyo kuwo inta eldariska iyo mas'uuliyiinta wax kala galaan ku eg intaba waa la sameeyaa hal abuur degmadu leedahay oo shaqeeyana waa jira oo ah qaab siyaasadeedka degmadu rabto mustaqbalka inay burburka uga baxdo muxuu yahay barnaamijkaasi waa barnaamij muhiim ah waxa weeye wadooyinka in la furo in muxuu ahay checkpointayaasha la qaado in muxuu ahay magaaladu nadiif noqoto laga shaqeeyo dadka guryahooda meelaha mugdiga in la shido muxuu ahay dadweynuhu inay ku yeeshaan contribution fakarka degmada oo ayaga inta shira loo qabto la yiraahdo ciidanku doorta waxaad rabtaan kabacdina gacan ka geysta markii go'aanka loo dhan yahay waa hubaal in dadku ficilkana wax qayb ka qaadanayaan مثل مقالة واحد جوجا عيدا اللي عيدا كميدو أفريقيا عيدا كاسي ميدو أفريقيا أمانك سوق مالها وين سيد الدكادية ربارك يا ملحتويدي وحيابها سي واحد وضع شقينا من الليدي هنيدنكو ساكذا هذا كان مدانك هاي وقصبية عيدانكو وحي وشقينيان أمد الصوماليات وحينا هكسنيان دفاع هراء إنا يقولك جهنان ضناها أي كلي دجانا حرطة iyo wararka ay ka doonayaan kuwa cadawga u joogo inta ba wahlaan waan laga shaqeeyaa marka waxaad ka wada shaqeysan amniga
guud ahaan amniga iyo difaaca qaranka waa laga wada shaqeeya haye wax ka misalan aad maalin kasta aad kulmaysaan ama bishiiba mar ama toddobaadkiiba mar oo muxuu ahay ama war isa siin ah ama wax dheef isa siin ah oo lagu kordhinayo maxaad nooga sheegi kartaa waxaa annaga dalkayaga annagaalan cidina naga iibin mayso compromisena kuma gelayno waxaa niyad voluntary yahan ku shaqaynaynaa hay-adaha annaga caawinayana kulligood kuwa cad iyo ku madooba diyaara una inaan la shaqayno aad iyo aad aad mahadsantahay qoysuweexo wala kale u olole maha xola maxay ahayd sida loo soo baranay inta koorsadaas ay ka koobneed baarista dambiyada maxay ahayd sida loo raadiyo tuugada sida loo raadiyo muqaadaraadka sida maxaabiista loola dhaqmo shacabka sida loola dhaqmo maxay ahayd la dhaqanka mujtamaca slow march iyo week march waay xagee ahayd marka meeshaas aad tababar ku qaadatay mayaani mayaale xagee weeye mayaani waa waddanka Kenya ku taala ayaa lagu soo tababaray marka muddada ka soo wareegatay maxaad isleedahay waa ka kororsatay mise waxaad isleedahay waa ka dhiman yihiin wax badan baa ka soo kororsanay haye maxaa isleedahay aniga saaxiibadayba haye aka maxaa yihiin waxaad isleedahay wallahi aad baad uga faa'iiday waxaan aad uga faa'iidnay wixii tababaradii hore aan qabnay hore u qabnay iyo kuwana loogu kordhiba aad baan maartay niyadeena si fiican bay maartay ay u soo qabatay مثلها لك ولا حاجة هاد من كوفي عنان لهيد اللي جبره. بالآدم كسين بيروح واحد منيه لكن هذا وحنا سليه هاي أنت بدأ واسكو في أنت. بني آدم كمرة والبين وحكم مقيم واسح لكن وحاس كامقن وحد سليه والله هذه وحال وجودر الهواء في عنان لهيد. دي مناش واحد بدن بعد مناكره سويته مش أن جوجنا وادو جدة. هذا حبسي أنا محتاجنا هاي. حتى وكقال كرت تصالح. سو جبان ياهي سو أفل حين ياهي كلا يدرس حبسي جساري بدن ليسيو سوق واحد بدن بعد من. wax badan ka maqan oo macnaha tayo kordhinta shaqada oo shaqada qosaysa oo maxaabiista xataa qada la siini hadi aad u mahadsantahay hada ma sataade amin media wana badina shaqadkeena ya qaranimo amin media amin media amin media qoysuweexo wala kale u olole bismillaahir rahmaanir rahiim heshiiska ummadda Soomaaliyeed noocyadeeda kala duwan way ugu sareeyaan madaxda dawladda ayaa shirkii hadda ugu dambeeyay wada tashi isugu yimid waxaana looga hadlay sidii loo gudbi lahaa kumeel gaarka iyo oo muddo badan nadaashaday oo taariikhda Soomaaliyana la yaqaano yaani dawladnimada wixii ay soo ahaan jirtay marka arrimahaas wax badan laga hadlay inta badan waa la isku afgartay inta kale oo dhimanna hadda ayaa la rabaa shir dambe ayaa jiro oo wada tashi kaas ayaa inta dambena la rabaa in lagu soo dhameystiro howlahaasna hadda waa lagu jiraa dhanka baarlamaankana gudiyada baarlamaanka hadda howlahooda way ku jiraan oo gudiyo hoose ayaa shaqeynaayo xilliga hadda soo dhown waxaan fiiri doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo in ma taqaanaa oo soo dhamaan doona shirkaas wixii ka dambeeyana kumeel gaarka sidii looga bixi lahaa in looga shaqeeyo haddana diyaar u nahay howlaheeda lagu jira haddii aan ka hadalno kumeel gaarka laga gudbayaa marka aan leenahay waxa loo gudbayaa dawlad marba aan kumeel gaar ahayn taasi hadda jilciso macnaheedu muxuu yahay maxaa loo baahan yahay in la sameeyo oo aan hadda samaysnayn waxaa loo baahan yahay oo hadda la rabo in la sameeyo waxaa jira charter ayaan hadda ku shaqeynaa oo kumeel gaar ah waxaa la rabaa hadda in laga shaqeeyo oo la sameeyo dastuur oo la rabo interim constitution ah ayaa la rabaa hadda in la sameeyo dastuurkaas ayaa la rabaa in looga baxo kumeel gaarka inta laga gaarayo kii rasmiga ahaa ee aftida dadweynaha uu afti u qaadi lahaa oo rasmiga inta laga gaaray waxaa la rabaa dastuur la yiraahdo interim constitution hadda in la sameeyo dastuur kumeel gaar ah hadda in la sameeyo si aan ooga baxna kumeel gaarka charterka aan ooga baxna intaan ka gaarayno dastuurkii saxda ah rasmiga ah
tirakoob ayaa jira in la sameeyo waxaa la rabaa in tirakoob la sameeyo shacabkii Soomaaliyeed in la tirakoobo in la sameeyo yani guddigii mataqaanaa tirakoobka wax badan jiro oo dastuurka cusub ee rasmiga inta laga gaarayo waxyaabaha badan in laga shaqeeyo hadda sidii nabadgelyo loo heli lahaa nabadgelyo iyadoo la helin hadda mataqaanaa dastuur rasmi ah aftida dawladda laga maqaadi karo wax badan dhiman marka waxyaalahaas oo caqabadka ah sidii looga bixi lahaa ayaa halkan sana ay dawladda heshiis waxay ku tahay in ay ka shaqeyso nabadgelyada ay ka shaqeyso dastuurkan ku meel gaarka hadda la sameeyo interim constitutionka loo yaqaano howlahaas ayaa hadda la rabaa in la qabto iyo baarlamaanka laftiisa in dib habeyn lagu sameeyo oo reform lagu sameeyo waxyaalahaas la rabaa hadda in laga shaqeeyo marka haddana howlahaas hadda waa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inta noo hartay sida ugu dhaqsaale in nooga baxo ma kula eg tahay in waqtiga haray ee hadda muddo hal sano xataa ka sii yaraanayo mar dhow in lagu dhamaystiri karo misalan kaba soo qabo dastuurka oo kaliya ka soo qabo in lagu dhamaystiri karo ma kula eg tahay waa lagu dhamaystiri karaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadaalkeedana wuu socdaa maxaa yeelay road mapka waxaa la rabaa hadda in la keeno baarlamaanka xukuumadana waa ku maqan tahay inay ka soo shaqeyso baarlamaanka la keeno laga doodo la ansixiyo kadibna lagu dhaqaaqo fulintiisa intaas way hadda wax dhib oo anaga hadda weyn oo sidaas ma jiraan hadii ay Soomaali niyad wanaagsan oo Soomaalinimo ah oo wadaniyad ay ku jirto ay u soo jeesadaan Soomaaliya iskale danaha Soomaalina mataqaanaa Soomaaliya iskale waxa kale oo intaas ka dambeeyay waxay noqonaysaa in adduunka uu nagu caawiyo waxyaabo badan oo aan ku fulin oo hawlaas lagu fulin lahaa adduunka looga baahan yahay inay nagu caawiyaan naguna taageeraan arrimaha Soomaalina hadda ififaalaha hadda noo muuqdana rajahanaga hadda aad ay u fiican yahay inta ayagana waxaan ka codsanaynaa in hawlaha sida ay noo qabsoomi lahayn in ayagana nagu kaalmeeyaan inuu garab galaan mudane Cabdi Weli waxaa laga hadlayaa misalan marka la leeyahay dastuur ayaa la samaynayaa waxaa laga hadlayaa in amaan laga hormariyo si loo samayn karo inuu dastuurkaasi shaqeeyo oo dadkana loo samayn karo in afti laga qaado dadkii la sameeyo muqaalata in lagu hirgelin karayo marka nabadgelyada gaar ahaan in waqtigaas aan sheegnay lagu soo koobi karo inkastoo hadda waliba guulo waaweyn aad sheeganaysaan marka la eego magaalada Muqdisho oo kale waxa ugu weyn oo wax walbaba hortaagan nabadgelyada wax walbaba waxay wax ku qabsoomayaan nabadgelyadana hadda waa noo wanaagsan tahay meel fiican ay noo maraysaa inta dhimanna waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in aan ka shaqeyno xukuumaddan ay u istaagtay si ay uga shaqeyso yani howlahaas fulintooda dhan wax ay ku xirantahay nabadgelyada waxaan rabnaa annaga inaan ka shaqeyno u guntino beesha caalamkana ay nagala shaqeyso sidii aan nabadgelyada aan u sugi lahayn wax badan ayaga xaggooda nooga xiran maxay in ayagana yiraahdaan waxna ma qabataan inayna dhahaan oo ayaga wixii wax lagu qaban lahayn xaggooda ay ka gaabiyaan marka annagu taas waxaan leenahay beesha caalamka ayaan rabnaa inay naga caawiyaan tasiilaadka oo wax lagu fulin lahaa nabadgelyadii wax diyaariyo oo hadda ka shaqeeyana waa joogaan ciidamada AMISOM hadda wax badan ay qabteen ciidamada dawladda Soomaaliya wax badan ay qabteen intaas oo loogu sii dhawaado waay aniga hadda rajaha aan qabo waxa waaye in halka sana niyad wanaag hadii lagu wada shaqeeyo in wax badan ay qabsoomayaan haddii waqtigu uu dheer yahay oo niyad wanaag uusan jirin waxba lama qaban karo laakiin waqtiga yaraantiisa niyad wanaagsan oo daacadnimo oo Soomaalinimo oo wadani hadii jirto waxaan qabaa in wax la qaban karo wadada loo marayo ka gudubka misalan xilliga ku meel gaarka waxaa ka mid ah in dib u habeyn lagu sameeyo baarlamaanka sidii adiguba aad ka dhawaajisay waxaana la leeyahay qodobkaas waa ka ugu dhibka badan taasoo macnaheedu tahay dib u habeynta in tirada baarlamaanka hadda intuu leeyahay misalan kala bar laga soo reebo ama number way tirada sidaas oo kala weeg say kula muuqataa tiradaas in lagu hirgelin karayo baarlamaanka uga suurtagelaysaa arrintaas baarlamaanka ayaa iskale haddii baarlamaanka loo daayo shaqadiisa wax badan ay qabsoomaya baarlamaanka asagaaba ogolba in dib u habeyn lagu sameeyo in la dhimo asagaa ogol asagaa diyaar u ah laakiin waxaan jecelnahay annaga aan leenahay in baarlamaanka shaqadaas uu qabanaya diyaarna waa u yahay waana u diyaarsan yahay nin walbaba waa garan karaa wanaagga wax uu ku jiro haddii loo daayo shaqadiisa loo madax banneeyo inuu asaga qabsado waxaan filayaa in wax dhib aysan ka imaan doonin ayadoo charterka iyo xeer hoosaadka la cusjinaayo
wax dhib ah kama imaan kara arrinkaas waana ku wada jirna haddana hawshaas waa socotaa marka haddii loo daayo markaan leenahay maxaan ula jeednaa yaa faragelinaya ama faragelin kara waa jiraan waxyaabo badanaa jiro oo damac fara badanaa jiro oo siyaasiyiina iska jiro marka waxaan leeyahay aniga anoon hadda hebel dhehaynin wax badan aan ognahay wax badanna waa soo marnay marka waxaan rabaa in shaqada baarlamaanka uu leeyahay loo daayo sida ugu wanaagsan uu u qaban lahaana isagaa yaqaana xeerkiisa iyo charterkaas uu ku shaqaynayaa arrimahaas marka haddii baarlamaanka hawshiisa sida xeerka uu qabo ayuu ku imaanayaa yacni haddii la dhimaayo iyo wax ka beddelka howlihiisa xeerkaas ayaa wax walba ayaa caddaynaya marka xeerka haddii sidiisa loogu dayo inuu baarlamaanka uga shaqeeyo ana lagu faragelin waxaan rajaynayaa in sida ugu wanaagsan hawshaas ay u fuli karto ugu dambeyntii mudane cabdi weli waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka golaha baarlamaanka ee dowladda ku meel gaarka adiga hadda haddii lagu yidhaahdo bal tiro sii sugan oo la yidhaahdo masalan 100% ayaan rumaysanahay aad dhihi lahayd in sanadka inta ka dhiman aan howlaha noo yaallo ku qaban karno ama 70% ayaan ku rajo leenahay ama 10% ama tiro intee la egaansiin lahayd oo rajadaada ay la eg tahay in hawshaas lagu qaban karo muddada kooban ay idiin hartay muddada kooban oo noo hartay aniga hadda tiro maxaa jira waddanka 22 sano burbursan yahay in wax la burburiyay waa fududahay laakiin in wax la dhiso waa culus tahay marka aniga ma dhihi karo intaasaa lagu qaban karaa laakiin haddii sida hadda ay wax ku socdaan hore loogu socdo in waxaan filayaa wax la qaban karaa ayaan filayaa aad iyo aad mahadsanta waa mahadsantahay xaaladda Soomaaliya والنبض إلى هالشط أبكينا يقال آمين يا آمين يا آمين يا آمين يا وإنسان حق دورها ودقمنا إسلامي مو آمين يا والنبض إلى هالشط أبكينا يقال آمين